kulankani oo ahaa mid aqoon isweydaarsi ayaa waxaa diiradda lagu saarayay qaabka looga faa'iideysan karo kheyraadka wanaagsan ee uu leeyahay dalka Soomaaliya isla markaana maalgashi loogu sameyn karo noocyada kheyraad ee Ilaahay ku maneystay dhulka iyo bulshada Soomaaliyeed. waxaa ka qayb galay kulankaasi laguna casuumay Professor Cabdisalaan Siyaad oo bare ka ah jaamacadda UWC oo ku taala magaalada Cape Town kaalinta afraadna kaga jirta jaamacadaha waddanka South Africa isla markaana wax ka soo dhigay jaamacada ku yaala wadamada Yurub iyo Afrika ayaa si weyn uga sheekeeyay noocyada kheyraad ee Ilaahay ku maneystay dhulka Soomaaliya. waddan waxaan nahay adduunyada waxaa jiro meelo la sheego la yiraahdo malaayga adduunka ayaa ku tarma Soomaaliya qaybta ugu weyn ee leedahay malaayga aan waddankan ka cunayna Soomaaliya ka yimaada xilliga winterka waa ka tagaan meeshan Soomaaliya tagaan Soomaaliya ku soo dhashaan waa soo noqda malaayga aan inta ka cunayna xilliga winterka ma joogi kara halkan waa inay ka tagaan si u soo tarmaan xeebay inay tagayaan markay dhashaan oo koolka oo dhinaca nado waa imaanaya sanad kasta waxa arkaysaa malaayga oo guuray ma qan dadka qaar in kamid ah KwaZulu Natal ay tageen laga yaabo magaalada Port Shepstone malaayga banaanka u soo baxa badiya qabo ku noqonaysa waa malaayga daa marka waa inay tagaan meel kulul meesha kulul ku tarmaan waa Soomaaliya anaga waa ka gaajoon. waxaa sidoo kale professorku soo hadal qaaday kheyraadka dhirta ee uu leeyahay dalka Soomaaliya iyo sida qaar ka mid ah bulshada ay u dabargoynayeen sanadihii la soo dhaafay. laakiin dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ku soo arkay hadda kheyraadka ka hadlayna waa geedi Soomaaliya daana ilaa geedka nagu diro maanta geed goysana arada waxaad ku meeran kartaa mar dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya ku soo arkay taas 2006 ilaa 2008 kan joog ilaa 2010 kan ayaan joog waxyaaba iyaga maxay dadka qofti ibn aadka Soomaaliga hadii qof disho hal hebel qof u diraa laakiin marka geed jirtid qof kula hadla ma hada naf gooy lama tarunt marka generation ka soo socda dad ilmaha dhalay doonaan dhul ku noolaadaan ina ugu tagna waajib hadii dhulka anaga abaabeen ilmaha dhalantay halkay ku noolaanay Mareykan iyo Yurub wadaadeen. ugu dambeyntiina Professor Cabdisalaan Siyaad ayaa ka soo qayb galayaashii kulankaasi waxa uu sheegay waxyaabaha hadda ay qabsan karaan bulshada Soomaaliyeed dhinaca wax soo saarka waxyaabaha waddanka laga qaban karo marka daawo shirkad daawo samay kartaa beeriya wax ka samay kartaa bangiyaasha samay kartaa macdana baari kartaa soo saar kartaa oil and gas soo saar kartaa telecommunication iyo television iyo radio dhismaha qalabka dhismaha cararkay ninka keenay guriga roofka la saaray talyaaniga ka keenay carada laga sameeyo waddanka ka buuxda marka dibadda ka keenay. kulankani aqoon isweydaarsiga ayaa midkii ugu horeeyay oo ay qabtaan ururka ardayda Soomaalida ee ku nool waddanka South Africa waxa ayna sheegeen in bishiiba mar ay qaban doonaan aqoon isweydaarsi noocan oo kala ah si waxyaabo badan loogu kala faa'iideysto. Cabdullaahi Maxamed Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa.